mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Burco iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Burco ayaa si mugla u soo dhaweeyay tanaasulkii madaxweynaha Soomaaliland kaga tanaasulay tartankiisii teenamka labaad ee doorashada madaxtinimada Soomaaliland iyo khudbadda qiimaha lahayd ee uu ka jeediyay shirkii golaha dhexe waxayna sheegeen in madaxweynuhu taariikh wacan iyo jid wacan uu jeexay guud ahaanba jiilasha dambe iyo madaxda Soomaalida oo inta badan caan ku ah bay yiraahdeen kursi jacayl waxaana mas'uuliyiintan iyo shacabkuba sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland muujiyay bisayl siyaasadeed iyo waxyaabo ugub ku ah Afrika halkan hambaliyo iyo bogaadin ugu soo jeedinaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo badii geesinimada lahayd uu shalay qabtay madaxweyne Afrikaana oo ayadoo 5 sano oo hadhay yiraahdo waan ka tanaasulay doorashadaydii oo ragii ila soo shaqeynayay baan u daayay taana aad afkii gobolka ku hadlaya aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay waxa weeyaan madalaha Soomaaliland buu yahay waxa kale halkan baliyo ku soo jeedinaya musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ee tartanka la galay xisaabta mucaaradka iyo musharax ku xigeenka labadaba waxaan u soo jeedinayaa hambaliyo ballaaran uga diraya koow madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo sidii qiimaha iyo sharaftu ahayd aan looga baran madaxda Afrikaanka uu uga tanaasulay musharaxnimadii uu insha Allah taala 5 sanadood soo socda uu isu sharaxi lahaa taasi waxay muujinaysaa madaxweynuhu inuu maanta arrin uguba oo dalkan ku uguba oo Afrika ku uguba oo taariikhda gelaysa inuu maanta halka ka sameeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan kaloo halkan ugu hambalyeynayaa musharaxa xisbiga kulmiye ka soo baxay Muuse Biixi oo runtii ah mujaahid halgamaa ah oo dalkan wax weyn u soo qabtay mujaahidiintii ugu waaweynaa dalkan magaciyo karaamada ku lahaa xaqna u leh maanta taa lagu doortay aad iyo aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sida raganimada iyo sharafta leh uu ka yeeray xisbigiisa iyo tanaasulka raganimada uu muujiyay xisbigiisa isagoo dowladda tanaasulay musharaxnimada xisbiga tanaasulkii uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo teeramkiisii labaad ee xaq u lahaa inuu tartamo ay ahayd imika sayeshay uu tanaasulka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana maxay toolay bisayl siyaasadeed uu muujiyay hogaamiyaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sameeyay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa go'aanka geesinimada leh ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qaatay isagoo oo xaq u leh dastuurka sharciga oo ogol yahay inuu teeram labaad soo sharaxo uu tanaasulay mustaqbalka xisbigiisii madaxweynuhu Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa go'aankii geesinimada taariikhiga lahaa ee uu qaatay waxaanu madaxweynuhu hormuud u yahay shacabweynaha Soomaaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika iyo Afrikaba waxaanu madaxweynuhu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee qaata go'aan noocan oo kala بدي مدحوينها قرن كوتشيدي شرويني شناد حسبي كلمية كاسو كذا تناسلي مركل تهرم كل بعض وحق قول هاي مترتمه الكاسو باللي صاحب بدي زين تبدون كسو يشترين خدك مدحوينه وحيتو سينان كوسي عن ما تشعليسن أي ويهاي وحمر لقيتي كرو أشتي شرف لقيته ناس توقف ناسين محمد سلام كله وعنده ونادي لي مصطفى عثمان مقالة تلفزيون كقرن كالسوماليلاند مقالة برعو